والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى. waxaynu hore uga soo warannay taariikh ka mida ummaddii tataarka la odhan jiray ama mongolianiska labadaba taariikhyahanadu aynu nidhi way ku magacaabaan. waxaynu soo sheegnay wakhtigii ay soo baxeen ilaa la soo gaadho 622 hijriyada. waxaynu soo tilmaamnay inay qabsadeen markaasi qaybo badan oo dunida ka mid ah. caalamulislaami waxaynu sheegnay dowladdii ballaadhnayd ee khawarzimiyiinta la odhan jiray ee dowla alkhawarzimiya inay tirtireen boqorkeedii hore firdhad inuu ugu dhintay jasiirad yar. inankii uu dhalee boqorkaayee marka labaad isku dayeyna isna firdhadkii inuu wadiga sind ka tallaabay oo uu xagga iyo indiya oo dowlad yaro islaamiya oo kale ka jirtay uu u gudubay. iyo jinkis khan ninkii la odhan jiray ee boqorka u ahaa bershiya oo diyaarsanaya bulshadii ama dadkii uu maamulayay. haddaynu maanta halkaa ka sii bilowno iyo magaalooyinkii waaweynaa ee waddankaasi khawaarzam ay lahayd oo la tirtiray. maalan taarikhyahanadu waxay tilmaamaan magaalada marwa waa merv ayay yidhaahdaan marka afafkan reer galbeedka lagu qorayo. reer galbeedka historianskoosa qaar ka mida waxay yidhahdaan waa magaaladii taariikhda u weynayd wakhtigaas. inkastoo aynu odhan karno malaa baqdaad kamay weynayn, haddana waxaynu soo tilmaamnay iyadoo qura 700 milyan dad gaadhay, 700 kun oo qof in lagu dilay. taarikhyahanada qaarkood waxay leeyihiin qaxoontiyadii iyo wixii dambe ku madhay 1 milyan oo kale gaadhayaan. waxaynu soo marnay nisaabuur af carabigana lagu qoro oo iyadana xawaali 1 milyan lagu dilay. waxaynu soo marnay carri dhan oo la tirtiray. 622 hijriyada haddaan ka bilaabo oo aan gebagabeeyo qaybta yaree koowaad ee ka hadhay noloshii jinkis khan, waayo jinkis khan wuxuu dhintay 624 hijriyada. wakhtigaasi waxaa dib u soo noqday ninkii la odhan jiray jalaaladiin ibnu muxamed ibnu khawaarzam shaah oo aynu nidhi wadiga sind buu ka tallaabay ayaa wuxuu ogaaday in waxoogaa tataarka weeraradooda ay kala degeen. dabeetana webigii sind buu dib uga soo tallaabay, waxbuu urursaday. karmaan meesha la yidhaahdo oo koonfurta waddankan bakistan la yidhaahdo ah ayuu soo galay. wuxuu u yimi nin la odhan jiray sacdadiin ibnu dakla. sacdadiin waa ninkaynu nidhi khiyaasudiin bay wada dagaalamayeen oo iska soo horjeedeen oo ah kan jalaaladiinkan walaalkii. sacdadiin ibnu dakla ayuu xilfi la samaystay isagoo ka soo horjeeda walaalkii. waxaan in badan sawirradan ka arki doontaan iyadoo dowlad xoog badani oo tataar la yidhahda ay dunida weerar ku tahay muslimiinta oo iyagu isku mashquula, laba isu haysta iyo mid oo iyagu kala dhammaan laha. jalaaladiin wuxuu soo baxay iyadoo nimay walaalayiin oo khiyaatudiin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo sacdudiin ibnu dakla ay istilayaan oo laba gruuboo yaryar yihiin. gruubkii walaalkii mooyaane gruubka kalu ku biiray, isna dagaalkuu xagga ka soo galay. wuu soo socdeen, wuxuu qabsaday galbeedka eeraan. dabeetana waxoogaa ciidana markuu urursaday xaggu tataarka kaga duuli lahaa ayaa xawalkii siyaasiga yacnii weershow xagga siyaasadda ku saabsan baa ku dhacay baynu odhan karnaa siyaasiyiintii muslimiinta wakhtigaa noolay. halkuu tataarka iyo ummaddan iska celin lahaa soo duushay ayuu weerar wuxuu ku bilaabay khilaafadii cabbaasiga oo sii daciiftay oo aan naf badanba lahayn. xaggeeduu weerarka u qaaday. magaaladan basro la yidhahda ee ciraaq ku taalluu 2 bilood go'doon ku hayay. dabeetana xagga iyo baqdaad buu u dhaqaaqay. baqdaad boqorkii markaa haysta aan mid fiican ahayn naasir lidiin illah ninkii la odhan jiray 47 sannadood buu xukunka hayay, laakiin waaxid mufsida buu ahaa bay yidhaahdaan. kaa dhankiisu u sii kacay
boqorkaasi markuu maqlay dawlad khawarzimiin markii hore ay colahaayeen markuu maqlay waxoogaa ciidan oo isu soo urursaday iyo basro la go'doomiyay iyo xaqiisa loo socdo ayuu tataarka waraaq u dirtay uu leeyahay ninka hal laga soo gaadhano waa khilaafadii dhammayd ee cabbaasiyiinta ee muslimka matalaysay oo rabta inay tataarka xilfi wadaag la yeelato si looga takhalluso jalaaladiin iyo waxoogaagan uu wato tataarku laakiin waxay iyagu mashquul ku ahaayeen dhul tiro badan bay muddo yar u qabsadeen dhulkaas sidii ay u dejin lahaayeen ee dowladnimadooda ugu sugi lahaayeen bay mashquul ku ahaayeen marka way joojiyeen futuuxaadkii tirada badnaa ay sii wadeen looma soo jawaabin ninkii la odhan jiray jalaaladiin meelo baqdaad agagaarkeedaa buu qabsaday dabeetana waqooyiga ciraaq buu u sii kacay faris dhulkii la odhan jiray buu qabsaday kor buu u sii socday faristu waa iiraan qaybteedan sare siiba kor buu uga sii socday waddankan yare hadda azerbaijan la yidhaahdo ayuu qabsaday dhanka galbeed buu uga sii socday azerbaijan markuu qabsaday waddankan ku xiga ee la yidhaahdo georgia waddankii la odhan jiray kurj ee luqa alcarabiya ay ku yidhaahdaan georgiyo haddana qabsaday waa ka sii socday wuxuu samaystay suldo waxoogaa leeg halkaa markuu marayo ayuu heshiis yar oo wakhti gaaban socday wuxuu la galay walaalkiisii khiyaasudiin la odhan jiray uu ninka kale ka taageeray dowlad waxoogaa iyabuu ka wintay markaa sanadkaa 622 ayaa waxaa geeriyooday khaliifadii dowla alcabaasiya maamulayay dowla alcabaasiya 137 bay soo bilaabantay markana 622 baa la maraya boqorkii markaa joogay oo naasir lidiin illah la yidhaahdo oo 47 sannadood xukumayay dowla alcabaasiya oo taariikhyahanadu ay yidhaahdaan wuxuu ahaa dadka siirada madowli dadka taariikhdiisu madowga tahay baa lagu tiriyaa marka laga warramayo khilaafooyinkii islaamiga nimankii xukunka soo maray 47 sanana wuu xukumayay taariikhdiisuna baal madow bay ku qorantay bay yidhaahdaan wakhtigaas u geeriyooday sanadkaa hijriyada ee 22 wuxuu iskaga gabagaboobay iyadoo tataarku wax duulimaad aanay soo qaadin laakiin muslimiintu dhexdooda ay isdildilayaan sanadkii 623 iyo 624 hijriyada markay uu soo bilaabmay waxa khilaafada islaamiga qabsaday nin marka taariikhyahanada muslimiintu ay aad u ammaanaan waa ninka la yidhaahdo al-dhaahir biamrillah al-dhaahir biamrillah waxay yidhahdaan aabbihii cagsigiisu ahaa yacni nin aad u fiican oo aad loo ammaanu ahaa ولذلك بقى تاريخيان كمسلم كي وين اللي يدعي ابن الأثير وكم إذا رجي أحداث تاسي أما دعدوين كاسي وقت قال الله نولا إن كستوي سووا سقوط بغداد هرتاد ولنتي لكن هذا تاريخيان هذا هو وين وحقق قرية تتارك وكم إذا ها وقت قال نولا أيها وحليه هي خليفة المسلمين تمو قبل عمر بن العبد العزيز كذب نن لم إذا ننك كان ننك يده بيقول رمبو شيء كره يعني الظاهر بأمر الله وحو دقيا خليفة شنات الخلفاء الأربعة مركز نكلم مادنه خليفة الله أماني وهو ينكدم به وعمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز وقت يسيبوا لي إلى يلقى قاعد يا وقت كان لحب قول يلا بيا لواتنكي لقى قاعد يو ووقت شاب خلاص الندوات كله دو شنتا بقول السندات بولي هي نن أدقمة الظاهر بأمر الله ما قبلن خلافة ضدك مسلمين تا taxation tira badan cashuur tira badan oo dulmi ahayd oo dadka laga qaadi jiray buu baabi'iyey maxaabis badan oo muslimiin oo siyaasiyiin u xidhan buu sii daayay dadkii fuqarada ahaa buu wax badan taageeray wax badan buu ka bedelay bay yidhaahdeen dowladnimadii laakiin وسيده وشيء ابن أثير باوحوا لها وناقا نكن يبرشدا فاسد كاسمع تمانا لين ما يقولون وقت بدن سيحين دونه تاريخي عن كاسا قرية سيدي سيباني نقطة وقت بدن موسيحين سقال بلاد كدباء وقريضي الله نحرسته وقت يو حكومي نو احتربوها لكن سقال بلاد قريحين وحقب صديني كدنبيي والمستنصر بالله لا يدهده
17 sannadood baan filayaa inuu xukunka hayay ilaa 640kii laga gaadhayay. jalaaladiinna qaybtiisii uu qabsaday ayuu fasaadka ka waday. dhacdooyin badan oo isbedelay wakhtigaa ma jirto. 624kii markay taariikhdu maraysay, yani taarikhyahanada muslimiintu inta badan sanad bay u qoraan, tasalsulka taariikhiga bay ilaaliyaan. 624 markay hijriyadu maraysay ayaa waxaa dhintay boqorkii dowladdii weynayd ee tataarka, temurjiin la odhan jiray, amase ku caanbaxay ee magaca ah jinkis khan. taarikhyahanada qaarkood dhowr iyo 60 bay ku sheegaan, qaarna ilaa 72 ayuu gaadhay cumrigiisu bay yidhaahdaan. noloshiisii ninkaasi wuxuu ku dhammaystay dil iyo gowrac iyo baabi'in. wuxuu ka tegay dowlad u dhaxaysa min kuuriya ilaa iyo baqdaad dacalkeeda, eeraan, beershiya dowlad u dhaxaysa. yacni waa dowlad ka kooban maxay? kuuriya ka soo bilow, jayna ku xigsii, indojayno oo dhan soo mar, bakistaan, afghanistaan, beershiya, xagga sare u soo kac. dowlo aad u ballaadhan buu ka tegey. wakhtiga uu dhintay waa wakhti malaha hadda laga joogo 808 sannadood meelaha. yani imika waxaynu maraynaa taariikhda 1432, isna 624kii buu dhintay, yani 8 qarni ka hor wakhti laga joogo kale. dhimashadii ninkaasi uu dhintay waxay keensatay bay yidhahdaan inay dunidu yara degto, xasisho. markuu dhintay way aaseen, xabaal iyo bumbuunis umay samaynin, waa la qariyey. ila alaan lama yaqaano xabaashiisa rasmiga ahi meesha ay ku taallo. taariikhdaasi laga bilaabo 624kii oo wakhtigu dhintaya ilaa intii laga gaadhayay 627kii, saddexdaasi sannadood waxaa la yidhaahaa waxay ahayd fatratu huduu, wakhti deganaanshiya ah oo aan isbeddel badani dhicin. marka la eegayo dhanka muslimiin, marka la eegayo tataarka iyo weeraradii ay hayeen. laakiin xagga muslimiinta markaynu eegno, fitankii iyaga dhexdooda yaallay sidii bay u karayeen. dowladdii waddanka dhan ka qabsatay ee madaxdii ka dhimatay ee waxoogaa khalkhalkii ku soo biiray may dhankeeda eegin, ee ninba ninkii ay ishayeene xaggiian joogay ayuu eegay. dabeetana waxaa dib u cusboonaaday jalaaludiinkii aynu sheegaynay iyo walaalkiisii kale khiyaasudiin, labadaba waxaa dhalay dowla khawaarzimiya ninkii haysan jiray. iyaga murankoodii baa dib u bilaabmo, dib bay u dagaalameen. ciraaq iyo faris, bershiya ayaa dagaallo cusubay ka bilaabmeen. dhanka muslimiinta waddankooda intii ugu dhaxaysay oo ah shaam iyo masar iyo intaasi waa qalbi alcaalam alislaami bay ahaayeen, oo qolana baray ka xigtay, qolana galbeed bay ka xigtay. qoladaasna iyagaa ishaysta oo dagaalkoodiiba tiro batay. iyagoo intaa cidda xukuntaa waa reer qura. waa salaaxaddiin alayuubi, boqorkii la odhan jiray muslimka ahaa ee qudus dib u xoreeyey, waa ciddii uu ka tegey. laakiin inamadiisii baa dowladdii intay kala qaybqaybsadeen iyo wixii uu sii dhalay baa isrifaya, markaasi iyagu madaxa iskula jira. iyana waxaa ka socda khalaaqal tiro badan. 626kii markay ahayd ayaa ayuubiyiintu dhexdoodii isdilka iska dilayeen. mid ka mid ah ayaa baytulmaqdiskii uu xoreeyey salaaxuddiin, kuwii ku abtirsanayay mid ka mida baa yidhi qolo kristana, nasaarada idinkaan idin siinaya bayt almaqdis, bisharti anna meel heblaysi iyo qolo heblaayana ila cadaadiya, qolo kale ay walaalayiin. dib baa loo siiyey. masiixiyiintii baa dib gacanta loogu geliyey bayt almaqdis in la siiyo imaaraad shaam ku yaalla qaar ka mid ah. jalaaludiinkii weerarkiisii uu iska sii waday, turkiga qayb ka mida buu galay, magaalo khalaad la yidhaahdo ayuu go'doomin ku qaaday. waa magaalo yaro adag bay ahayd. go'doomintii waxay keensatay muslimiintii ku jirtay xad la yidhaahdo eyda iyo bisadaha la cunay. markii dadkii gaajooday ee wax la liqa la waayey, ay iyo bisadaha la cunay. akhiiranna way isdhiibtay, wuu qabsaday. markuu qabsadayna raggiina wuu laayey, dumarkiina wuu addoonsaday, carruurtiina wuu gatayba oo addoommuu ka dhigay. hadda waa muslimiin dadku sidaa u gelaya, dad muslimiina. tataarkiina dhinaciisay joogaan,
waliba tataarku dawladii aabihii bay rideeniyay isagaba nimankii wixii ku sameeyay xaqooda ma eegina kolba tuulo yaro muslimiin ama gobol yaro muslimiin joogto dhankoodu duulimaadu sii wada tataarka markaynu iyaga dib ugu noqonno odaygoodii wuu dhintay odaygu afar wiil oo dhigi cabaabu dhalay oo la mid ah isaga laakiin labadii waaweynaa ayaa isqabtay jaaji ayay carabtu qoraan jooji na qoladan gaaleed baa qora jooji ninka la yidhaahdo iyo walaalkiisii ku xigay ayaa isdilay markaasi oo isqabsaday jagati kan la yidhaahdo jagatigu waa luqadan imika luqal jagatiya la yidhaahdaa meesha ay ka timi tataarkan muslimiinta hadda meelahan yurubta qaar degan iyo raashiya iyo waa luqada ay ku hadli jireen ee abtirsiintoodii hore ay ku xidhan tahay jagati oo inankii labaada dhaqanku wuxuu ahaan jiray inuu qabsado boqorka inankiisa ugu weynayo jooxiya jagati baa isa soo taagay joojiya jagatiga isa soo taago wuxuu yidhi marnaba u hoggaansami maayo kaasi inuu qabsado dhexdhexaadintii waxay noqotay in la yidhaahdo ninka saddexaad ha qabsado ninka saddexaad waa okotay nin la yidhaahdo oqotay iyo okotay ayay carabtu qoraan qoladan qaadnee ogidia ayay qoraan qoladan reer galbeedku ninkaasi ayaa dawladnimadii oo wiilkii saddexaad ee uu odaygu dhalaya ayaa dawladnimadii gacanta loo geliyey dawladdii markaa waxaa bilaabantay dawlad cusub oo uu xukumo ogaday ninka la yidhaahdo okotay markuu waddanka qabsaday wuxuu dib ugu noqday inuu dawladdiisii dib u habeeyo inuu dejiyo dawladda halkii salka u ahayd oo ah China iyo Mongolia 624 ilaa 673 sannadood wuxuu ku jiray bay yidhaahdeen inuu systemka dib isugu hagaajisto oo muramada walaaladii uu dhammeeyo dawlad xooggan ay dib u noqdaan kadib wuxuu magacaabay qaa'id caan ahaa oo Shormajan loo odhan jiray ayaa waxaa loo magacaabay inuu weerarada bilaabo caalam islaami weerarkii lagu qaadayay taariikhdu markay hijrigii maraysay 628 ayaa waxaa bilaabmay ninkaasi ciidamadiisa inuu dhankan u soo kaca haddaynu dib ugu noqonno intay ishabaynayaan tataarku muslimiintu sidii bay isu dilayeen oo furqadii dadka muslimiintu sidii bay u taalay jalaaludiin marka la eegana Shormajan markuu ciidamadiisii soo bilaabay ee dagaalka ku soo qaadayba firqad buu bilaabay dabeetana waa la eriyaday aabihii markaynu ka warramaynay waxaynu ka warranay isagoo intaasoo magaalo laga saaray oo ciidan yaroo tataari daba ordayaan oo kolba meel ka dhacaya boqorkuna uu yidhi nolol ha lagu soo qabto sidii uu ordayay baynu ku tilmaamnay baxrul qaswiin inuu ka baxay jasiiradii yaroo baxrul qaswiin ku dhex taalla buu ku baktiyey baynu halkaas ugu dhintay kanna dib baa loo soo eriyaday carruurtiisii waa la qabtay waxan waa la qabtay balaayaa isna ku dhacday weliba jalaaladiinka kane intaan tataarku eriyanin dagaallu wuxuu la galay muslimiintii kale al-ashraf ibn al-aadil ninkii la odhan jiray oo xukuma diyaar al-jaziira labadan webi ee ciraaq mara xaggoodan waqooyiga waxaynu odhan karnaa waa ciraaq waqooyigeeda iyo koonfurta turkiga intaa isku xukuma ayuu dagaal la galay dabeetana laba goor buu kaasi jebiyey Shormajan iyo ciidamadiisii way soo socdaan muslimkuna halkay isku sii dilayaan labadan kooxood baa isdilay laba goor baa la jebiyey Jalaaludiin waxa kaloo jira Iran galbeedkeeda iyo Baghdad dhexdooda buuraley weeyaan buuraley yar oo dheer oo luuqa ku taala buuraleydaasi waxa degan taa'ifo Ismaaciiliya yani taa'ifo Shiica waliba shiicada kuwan Ismaaciiliyada la yiraahdo aga khaankan iyo kooxdiisii taaifa Ismaaciiliya degan kuwii xashaashiinta loo oran jiray bay ahaayeen taa'ifadaasi qalca al-mawt la yiraahdo bay lahaan jireen meeshaasay deganaayeen niman aad u dhib badan oo dagaal badan oo assassination iskana aad ugu fiican dadkan hoosta loo khaarijiyana aad u yaqaan bay ahaayeen qolada sunniga culbay la ahaayeen kadib
waxay fakereen jalaaludiinkan agtooda kolba cid maraya bay ka cabsadeen dabeetana tataarkay waraaq u direen ay leeyihiin ninkii jalaaludiin laba goor baa la soo jabiyo aad buu u liitaa haddaa iminka jaaniska ka faa'iidaysataan waa waqti laga takhallusi karo warkaasaa gaadhay tataarkii dabeetana way yimaadeen jalaaludiin ayay ku dhufteen haziimo aad u foolxun si foolxun baa loo jabiyey wuu cararay sidii aabbihii buu kolba magaalo galay sidii loo eriyanayey ayaa markii dambe magaciisaba la waayey meeluu ka baxay ciidamadii iyo wixii iskaga tegoo keli firdhaday boqorkii dhammaa ee muslimiinta looga taag lahaa ayaa isagii waxa la waayey meel allaaliyo meeluu galay taarikhyahanadu waxay yidhaahdaan siduu meelaha ugu dhuundhuumanaya isaga soconayey show kurdistaantan u dhex galay ayuu maalintii dambe wuxuu ku soo baxay baa layidhi nin reermiyi iyo kurdiya oo meel iska degan ninkan reermiyiga ee kurdiga berigii hore uu dagaalada waday buu walaalkii dilay dabeetana ninkii reermiyigaa maruu ku soo baxay buu war kumaad ahaydoo malaha lagaa yaro cabsadiyo wuxuunbuu isyidhoo wuxuu idhi jalaaludiin baan ahay jalaaludiin ibnu muxamed dowla alkhawaarzamiya boqorkeedii baan ahay ma ninkaasaa tahay ha waa si fiican waa martisooray soo dhowow buu yidhi martisoor fiican buu u sameeyey habeenkii markuu khuuriyeyna intuu faas qaatay ayuu madaxa ka gooyey jalaaludiin odaygaa yare reermiyigaabaa ku tegey isaga warkiisu wuxuu ku dhammaaday isagoo kurdistaan dhex maraya ayaa ninkaa reermiyiga ka takhallusay bay idhaahdaan waxay idhaahdaan tataarku dagaalkii bay soo bilaabeen maadaama khawaarzam ninka qura ku hadhay uu kan ahaa kana ciidankiisii ay soo jabiyeen magaalay baaqigii u soo galeen si fiican bay dadkii u jabiyeen si fiican bay wax u laayeen taarikhyahanadu waxay sheegaan waxyaabo runtii aanad rumaysan karaynin maalan ibnulasiir kitaabkiisa taariikhda markuu soo naqlinayo siday tataarku ula dhaqmeen dadkii muslimiinta ee meelaha joogay waa waxaanad iminka rumaysan karaynin wuxuu qorayaa nin quraa ku soo baxa 17 muslimiina dabeetana fadhfadhiista buu yidhaahdaa waa loo fadhfadhiistaa madaxu ka gura wuxuu qorayaa ibnulasiir waxyaabaha qosol kale uu qoraya waxaa ka mid ah tataarkii layntii badnaay ay dadka laynayeen dadku marka ay naftu isugu timaado لا والله لا بالله لا تقتلني لا بالله لا تقتلني بي ددكو odhanayeen ما إلى ما ku dhaariya haydilin wuxuu tataarkii waxay isaga qaateen eray lagu cayaaro markay kaftamayaan لا والله لا بالله لا تقتلني bay odhan jireen buu leeyahay askarta tataarku yani erayada la isku madadaaliyo waxa kamid ah bay leeyihiin لا بالله لا تقتلني دولة المنغولية أما التتارك waxay qabsadeen markaa wixii dawlado muslimiina oo dhowr iyo toban ay nooran karno dhul maanta ilaa 12 wadan oo maanta jira waa Turkmenistan iyo Tajikistan iyo Afghanistan iyo waxaasoo dhan istaanadoo dhan soo mar ilaa Pakistan ku soo dar ilaa Iran ku soo dar ilaa Azerbaijan ku soo waxaasoo dhan bay qabsadeen iyaga iyo dawlad Cabbaasiya waxa u dhaxeeya markaa luuqii yaraaye ay deganaayeen nimankii shiicada ismaaciiliyada la odhan jiray taariikhda marka la soo gaadhay 629 ilaa 634 shantaa sannadood isbeddel badan may samaynin ee waxay isku dayeen inay dowladnimadoodii adkeeyaan meeshii dowlad khawaarzimiya ay ka talin jirto dhanna iyagoo caga dhigtaan intaa waxa ku gabagabaysmay dawlad khawaarzamiya iyo warkeedii oo aynu labadii muxaadare hore kaga hadalnay halkan waxa ka bilaabmaya markaasi weeraradii labaad ee ay qaadaan nimanka tataarka la yiraahdo nimanka tataarka weeraro dhowr waynu akhriyi doonaa hadii waqtigu inuu sibo hadda halkan waxa ka bilaabmaya weerarkii labaad ee rasmiga ah ay qaadaan oo dhul cusub ay ku qaadaan weerarkooda rasmiga ah waxaa loogu talagalay inuu hogaamiyo ciidan uu wato nin la yiraahdo Batu Chochi baa dhalay yani Batu waxa awoow ah Genghis Khan waa Batu ibn Jaji ibn Genghis Khan
batu ciidan uu wato ayaa waxaa loo soo diray baxri alqaswiin badan la yidhaahdo iyo meeshaasi wuxuu bilaabay markaa inuu raashiya iyo dhankaasi weerar ku qaado wuxuu qabsaday webigan volga la yidhaahdo dadkii turkida ahaa ee meesha waxa degi jiray atraak dadkii turkida ahaa ee webiga volga la yidhaahdo ayuu wada qabsaday kor buu sii socday 635kii ayuu wuxuu weerar ku bilaabay markaa raashiya caalamul islaami xaggeedii markaan umay soo jeesan ciidanka weyn waxa loo jeediyay xaggaasi raashiya ayuu dagaal ku bilaabay oo raashiya magaalooyinkii waaweynayda ay lahayd oo dhan bay xabad xabad u jiidheen waxay qabsadeen magaalo riidaan la yidhaahdo waxay ku xigsiiyeen kolomon waxay ku xigsiiyeen Vladimir waxay ku xigsiiyeen Sozdal waxay ku xigsiiyeen Moscow caasimaddiya waxay ku xigsiiyeen Poryev waxay ku xigsiiyeen yani isay magaalo ilaa ay Tuzuk dhowr iyo 10 magaalo waaweyn oo magaalooyinka Russia bay qabsadeen haddaan si kale u tilmaamo waxay dhahdaan Russia masaaxadeeda markaa waxa lagu qiyaasayay ilaa iyo 17 milyan oo kiiloomitir murabbaca 17 milyan oo kiiloomitir waa imisa waa inuu dhigata dhulka Soomaaliya malaa 27 jeer Soomaaliya waa 600 iyo maxay 627 kiiloomitir bay ahaan jirtay jamhuuriyadda Soomaaliya intay ahayd dhulku laabmi kara yani inta soo jeer 27 jeer oo Soomaaliya ah ayay 2 sano gudahood ku qabsadeen waxaad qiyaastaa dhul baaxadiisu Soomaaliya 27 jeer tahay oo 2 sano gudahood ciidan maray 2 years within 2 years bay waxay ku mareen wadankii Russia loo oran jiray dhammaantii bay jiideen waa 635 iyo 636 magaalooyinka markay galaan dhaqankoodiina way ku wadeen ahaa inaan wax dhaqaaqa la sii deynin Moscow oo kale waxa la yiraahdaa dhagtay dhiiga si fiican ugu dareen 638kii markay maraysay ay waxay bilaabeen markaa inay weeraradooda Yurub ku soo jiheeyaan batu ninka la yiraahdo oo ina Georgia curadkii ama odayga ninkii weynaaye uu Genghis Khan dhalay ayaa dhalay wuxuu bilaabay inuu Yurub weeraro weerarka koowaad waxa lagu bilaabay wadankan la yiraahdo Ukraine waa wadan masaaxadiisu taas Soomaaliya ku dhadhaweyd waa 600 oo kun kiiloomitir halkay Soomaaliya 627 ka ahay Ukraine ayuu dagaal ku soo bilaabay Ukraine dhamaanteed buu qabsaday ilaa uu ka soo galay caasimadooda Kiev ayuu qabsaday 639 markay maraysay ayuu ciidan yar oo ciidankiisii ka mid ah Bayder nin la yiraahdo loo dhiibay weerarka bilow baa la yiri Yurub waa in la isku gaala bixiyaa markaa weerar buu ku qaaday markaa Polandiiska markii weerarka lagu soo qaaday ay Polandiisku waxay bariyeen Jarmalku inuu caawiyo boqorkoodii Henry Duck uu ka talin jiray Germany ayaa soo kaalmeeyay Poland iyo Jarmalku oo iswata ciidan ay wataan bay dagaalka ku soo galeen Tatarkii baa la kulmay si fudud ayaa iyagana looga takhalusay Polandna way qabsadeen Poland markay marayaan ayay hoos u soo dhaadhaceen dabeetana Majar Hungary wadankan la yiraahdo ay weerarka ku soo bilaabeen Hungary-na si fudud bay uga takhaluseen dhammaanteed ayayna gacanta ku dhigeen waa laga sii socday Slovakia ayaa iyana cagta la mariyay waxaad moodaa Slovakia markay ka soo baxeen horay u socdeen Croatia ay cagta mariyeen ilaa ay ka gaadheen badan maxaa la yiraahdaa al-Bahr al-Adriyaati Talyaaniga dhinaciisa badan ku taala ilaa ay halka ay ka soo gaadheen qiyaas ninka Russia ka soo bilaabay ee Russia oo dhan qabsaday ee haddana Yurubtii bari ka soo bilaabay ee Poland iyo Ukraine iyo Hungary iyo Slovakia dhulkaas oo dhan soo qabsaday ee jooga Talyaaniga dhinaciisa waxa ka dhiman Yurub markaasi afartii dawladood ee waaweyn u haray oo waqtiga ahaa maxay Namsa Austria iyo Almaaniya Faransiiska Talyaaniga iyo Britaniya intaas ka hadhay inta kale cagtay soo mariyeen halka marka la marayo waxa ka dhacay wadankoodii isbedel oo giidiya boqorkii la oran jiray baa isna dhintay ee ina Genghis Khan ahaa lawla bay yiraahdaan taariikhyahanadu aan geerida oo giidiya dhicin
yurubta galbeed dhammaanteedina waxay ku jiri lahayd bay leeyahay gacanta tataarka idima celiseen laakiin markii yurubta galbari ay gacanta ku dhigeen oo halka ciidanku marayo ayaa waxa dhintay boqorkii ka talinayay wadanka meesha tan ninka maraya ee dhulkan furtay ee ciidanka haysta waa ina jooji waxa muran ka dhaxeeya joojiyada waataynu nidhi aabihii baa lahaa boqortooyada laakiin walaalkiisii ka yaraa ninka aabihii walaalkiisii ka yaraa oo jagtay la yidhaahdo maadaama ay hayeen boqortooyadii waxa la siiyey ninkii saddexaad waxa markaa xilfi wadaag yara ah oo giidiyagan la siiyey iyo jagtay oo inankii labaad ee uu dhalay boqorku labadaas xilfi wadaaga qolada tan iyo kii ugu yaraa ee uu dhalo Genghis Khan oo toolu ay carabtu qoraan tooliyu ay qoladan galbeedkuna qoraan ka yar oo aan ninkii askarta ugu badan dhaxlay yaani dhaqankoodu wuxuu ahaa wiilka yar boqortooyada dhaxalkeeda waxba kuma leh laakiin waxa loo badiyaa hantida kale marka waxa dhahay Genghis Khan 129 kun oo ciidan u ka dhintay 100 kun kan yar baa la siiyay bay yiraahdaan 29 kun kala saddexda waa weyn qaybsadeen bay ku tilmaamaan inagaan waxba dawladda iyo murankii ka dhaxeeyay hoos u sii galaynin ninkii la oran jiray Batu oo ina Georgia ama ina Jaaji saado akhridaba ah oo Yurubta bari markaa gacanta ku haya ilaa Russia waxay kaliftay inuu dib u noqdo oo Krakow meeshii la oran jiray qoram carabtuna ay qorto oo ah caasimadii Mongolian iska looga talinayay markaas dawladda tana inuu dib ugu laabto oo Yurub dib uga baxo marka kan si uu uga qayb galo doorashooyinka iyo loobiga siyaasiga ka socda wadankii ninka madax ka noqon doona dawladda tataarku marka kan waxay ka talisaa Kuuriya meel ay bari u xigto Polandna galbeed u xigto Poland ilaa Kuuriya baladu qiyaas dhulka isu jira inta xagan balaca kana Siberia ilaa ay laga soo gaarayo maxay badda China inta ka dhaxle inta ka dhaxle ayuu xukuma dood ka dib madaxnimadii waxa loo gartay inuu qabto Guyuk ama Kuyuk nin la yiraahdo oo uu dhalay Okatay dawladda tan miisaanka ay lahayd waxaad ka garan kartaa wufuudii caalamka ka yimi oo ka mid yahay caalamul islaami 3,000 ilaa 4,000 oo qof baa ka qayb galay baa la yiraahdaa boqorka caleemasaarkiisii oo ah wufuud laga keenay maxay dunida wixii boqor yar joogay iyo wixii meelaha joogay si looga qayb galo caleemasaarka boqortooyadan ee dunida ka talisa sideedaba waxay dhadaan taariikhda maanta la hayo dawlad mar talisa oo tataarku intuu ka taliyay ka weynimay soo marin taariikhda bini'aadamka gaal iyo muslimiin waxa doonto isku dar dawlad mar tarisa oo masaaxada dhulka mar quran nin boqoro quri uu wada taliyo oo dawladda tataarka ka ballaaranimay soo marin ninkan yar ee cusub ee qabsaday Kuyuk la yiraahdo wuxuu isagu ra'yigiisu ahaa futuuxaadka in la joojiyo laakiin wadankii ballaarnaa ee la qabsaday in si rasmiya loo xukumo oo qalanqalla iyo rabshado dambe aanay u soo bixi karin oo maamulka loo baahiyo muslimkii bari isaga dhammaantii way liqeen bari wixii muslim xigay waan oran karo waqtiga mala muslimiinta inta ugu badan bay haayeen iyaga dhammaantood way liqeen bartamihii muslimka intii ku noolayd oo ah marka Ciraaq ilaa Masar inta ka dhaxla ah iyana qalanqal tiro badan baa ka jira oo dawlad Ayyubiya iyo Cabbaasiya iyo wixii dhex socday qalanqal tiro badan baa ka jira galbeedka muslimiinta marka la eego iyana waxa duntay dawladii dawlad muwaxidiin loo oran jiray saadaradeed iyana muran kale ayaa ka jira oo marka loo eego Liibiya iyo Algeria iyo Morocco iyo Jazaa'ir waxaan marka la eego iyagana dawladii ka talinaysay inta soo dhamay way duntay oo kala daadsantay dawladda tataarku muslimiinta iyo kristankaba
dhibaatay u geysteen dhul badanna way ka qaadeen maca daalik muslimkuna isagaa mashquul isku ahaa kristanka inta soo hadhayna in muslimka la weeraraabay mashquul ku ahaayeen yurubta galbeed wakhtigaasi ciidamay ururinaysay umay ururinaynin ciidamadaasi inay furtaan yurubtii bariya la qabsaday ama tataarkii nafta isugu keenay in la iska celiyo ee waxay u ururinayeen in ay dhul kale muslimiinta ka qaadaan iyaguna oo ay weerar soo qaadaan yurub markaa dagaal bay u diyaargarowday muslimiinta lagu qaado siiba waddankan shaam la yidhaahdo iyo masar tataarka laftiisii waxay dhex galeen bulshadii ay la noolaayeen siiba dumar badan bay guursadeen oo dumarkii cadcaddaa ee kristanka ahaa maadaama muslimiintu dumarkoodu aan la ogolayn inay guursadaan gaaladu dhanka kale christianitigu waxay ka faa'iidaysadeen xididnimadii ay la xididayeen nimankii tataarkii ay dhayarka ahaa dabeetana dumar badan bay ka guursadeen guryihii boqortooyada dumar masiixiyaa tegey soo dhowayn badan bay ka heleen dhankaasi qaado ka mida qaadadii magoolka laftoodu christianitiga ay qaateen 640 markay taariikhdu maraysay waxaa dhintay isagana boqorkii ka talinayay dawla alcabaasiya almustansir billaah ayaa dhintay kadib waxaa qabtay inankiisii la odhan jiray almustacsim billaah khilaafada muslimiinta ninkaa qabtay wuxuu ahaa bay dhahdeen nin ku caanbaxay qur-aanka akhrintiisa wuxuu ahaa bay dhahdeen cilmiga tafsiirka iyo fiqiga nin wax doora ka yaqaana acmaasha khayrkaa nin aad ugu fiican buu ahaa laakiin waxay dhahdeen cillad buu lahaa waxaa haysatay bay dhahdeen ghafla can siyaasa nin wadaada uunbuu ahayo wadaadnimadiisa ku fiican qur-aan akhriskiisa iyo wardigiisa iyo cibaadadiisa laakiin ma ahayn bay leeyihin siyaasi muxannaka oo wakhtiga kani waa wakhti shiddo waa wakhti dagaal waa wakhti u baahan nin tajribo siyaasiyo fiican leh marka nin wadaadoo cibaadada ku fiican buu ahaa bay leeyihin laakiin ma ahayn haba yaraatay khibro siyaasiyo fiican nin leh weliba ma ahayn bay dhahdaan nin kala yaqaana ragga sida loo doorto iyo xaashiyada uu wadanayo sida awgeed dad aad u liita ayuu ka dhigtay wasiir alawalkiisu wuxuu ahaa nin shiica buu ka dhigtay waan fiicnayn xaashiyo aad liidata ayuu soo urursaday waxay yidhaahdaan muu noqonin rajul lmowqif ama wakhtiga dhibtu taagantay ninkii ummadda ka saari lahaa muu noqonin dowladdii tataarkuna waxaynu nidhi wakhtiga kan kiyuku markuu qabsaday 639 ilaa iyo 646 7 sano hayaan filaya 2 sano mise 3 sanana xaaskiisa markii dambe qabtay 7 sannadood wax waddan oo cusub may furanin yani mongolian isku dagaal cusub oo waddana may qaadanin waxay isku dayeen inay waddannadii ay qabsadeen inay hagaajisan karaan ama ilaashan karaan reer galbeedku wakhtigaas iyaguna waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan siiba waxay u arkayeen colaadda iyaga iyo muslimka u dhexeeya inay colaad rasmiya oo aan gaboobaynin oo soconaysa ay tahay laakiin nimankani maadaama aanay caqiide iyo diin cusub wadin weliba waxaa taarikhyahanada qaarkood ay tilmaamaan mongolianisku ama tataarku diimaha aad umay faragelin jirin ama may necbayn laakiin qaanuun yaasiq la yidhaahdo alyaasiq bay carabtu qortaa ama alyaasi laakiin yaasa bay kuwa kala qoraan qaanuun la yidhaahdo bay lahaayeen qaanuunkaasi qasab buu ahaa qaanuunka dowladda sidan cilmaaniyiinta oo kale diintaa doonaysa ku cibaadayso laakiin qaanuunka dowladdu inuu qasab yahay nidaamkii islaamiga ee wakhtigaa jirana waxaynu naqaanaa islaamku caqiide iyo shareeco iyo qaanuun kala baxsanay ma jiro laakiin diimaha ay kala baxsan yihiin way ku hoos noolaan karayeen waayo inuu kaniisad la dhistay iyo in masaajida la dhistay iyo waxaasi wax weyn kama ahayn bale taarikhyahanada qaarkood baa waxay yidhaahdaan 16 gobol ee ay sameeyeen tataarku magacyada islaamiga ragga watay wax maamulaya 9 bay ahaayeen 9 ay u dhiibeen provinceski kuwa kalena Chinese bay u badnaayeen bay yidhaahdaan waayo Mongolian isku niman reer miyiga
ودقاليهن باي هاي لكن رق مامول يقانا ما يهين سادر هذا ميلها يقبصها ميلها قاركود مركي مامول يا إدارة مادو عد مامول يقانا يدين جيرين oo inay u dhiibaan iyagu se waxay ahaayeen niman fardaha leedo ku fuula oo faras golam galay wata oo dagaalkoodu surca yaani min dhulka la yiraahdo way isaga jareen meelo malaa'imka gaadhiguba uu dirqa ku jara la yiraahdaa maalmo yar bay u kala gudbi jireen meel aan laba ogeyn inay waaga ugu bari jiray iyagoo dhowr kun ama 10 kun askari oo faras fuushan xataa waxa la tilmaamaa taariikhiyahanadu fardahooda kooro caan kuma ahayn la dafuul bay ku wadan jireen marka niman aad u fudud oo dheereeya bay ahaan jireen waqtiga deganaashiihu jiray reer galbeedku waxay u fakarayeen iyagu baytul maqdis iyo agagaarkeeda iyo muslimiinta siday u jabin lahaayeen dabeetana innocent-kii afraad waa boobkii innocent la odhan jiray innocent-kii afraad safaarad buu diray wuxuu u diray Karakorum ama Qaraaqrum meeshii looga talinayay Mongolianiska wuxuu leeyahay waxaan idinka codsanayaa dawladda Mongoolka iyo boobka iyo Yurubta galbeed ee Catholic ahi inaynu weerar wada jira ku qaadno dadka muslimiinta ah siiba Masar iyo Shaam weerar wada jira inaynu ku qaadnaan idinka codsanaya waxaan kaloo ka codsanayaa buu inay diinta masiixiga qaadato boqortooyadii baa waraaqdii u timi kiyaku wuxuu aad uga xanaaqay boqorkii boqorrada dunida ka talinay in la yiraahdo diin soo galbaa cadha ku keentay sadaraadeed wixii uu soo qoro dhan wuu diiday wuxuu yidhi adiga waraaqdu uu soo qoray uu leeyahay adiga iyo boqorrada Yurubba inta hadhay waxaan idinka rabaa idinkoo daaca oo adeecaya oo ii hoggaansan inaad timaadaan dhammaantiin waraaqa buu qoray innocent-kii afraad boobka kani hadaf buu lahaa muu ka quusanin weli ee quwaaddii ka sokaysay gaar ahaan beershiya qaa'idkii joogay ee ka mid ahaa nimankan Mongolianiska Bijo nin la yiraahdo oo markaa Persia iyo inta tan qaydkoodii maamulayay ayuu haddana safaar kale u diray isagoo leh waa 645 codsigii mar labaad u diraya Tabriz magaalo la yiraahdo Tiflis bay qoran qoladan reer galbeedku Tabriz kaas baa loo diray ninka jooga Bijo la yiraahdo inuu aqbalo qadiyadatan aad buu soo dhaweeyay Bijo wuu karaameeyay qoladii masiixiyiinta u timi laakiin day isagu go'aan ma qaadan karo ilaa iyo boqorkii weynaaye kiyuk uu qaato boqorkiina waxa loo geeyay ra'yigiisu halku joogay wadanadii reer galbeedku fikradii uu dirayay boobka qura kuma ay qancin iyo waxa kiiye ciidan urursi baa la bilaabay waxa bilaabmay Louis-kii sagaalaad ee Faransiiska ka talinayay inuu ciidamadii Catholic oo dhan soo hogaamiyo ciidamo ururis in lagu sameeyo jasiiradan Qubrus la yiraahdo oo ciidamada la isugu keeno markuu Qubrus yimi ayuu haddana waraaq kala qoray tii saddexaad baa la qoray oo laga codsanayo nimanka Tataarka ahi hadiyooyin tiro badan iyo wax tiro badan uu dhiibay waa 646 bay maraysaa markaa in dagaalka ay la soo galaan marka kan خاقانكو يعني أصلك خان كاها بغرطوية لكن مركو أضاقي دنتاي عبورتيسي كي بغرطوية الله دورتي مينا كوا كلامت بقبل دولة قاربة لسي مدوال بخان بالو بحيي كي مدحنا وضع نقضينا مركا خاقان بايكا ديغين خاقانكو مركا وكيوك وكان ماشي ورنا نسوها يستا خاقانكو سور دويي نمانكا كان آدو سور دويي لكن waraaqdii saddexaad waxay timi 646 isagoo kiyugii markii hore deel xidhiidhka la sameeyay isna dhintay geeridiisa bay la kulmeen geeridiisa markay la kulmeen markan meeshii waxa qabsatay saddex caruur oo yar yar buu ka tagay hooyadood ayaa oqol qaymosh la yiraahdo ayaa looga dhigay wisaaya inay
carruurta hayso oo kuriso ilaa iyo intay dowladdana iyadu boqortooyada sii maamusho. laakiin nimankii dagaalyahanadii reer miyiga ahaa kumay qancin in naagi ka taliso. dabeetana muddaa dowladdii mongolianisku khalkhal gudeed uu galay. 3 sannadood bay islaantaasi hor fadhiday. waa la murmay. akhiiran waxaa guulaystay loobigii inanka weynay wixii uu ka tegay iyo ka yari wixii uu ka tegey. joojiga iyo carruurtiisii waa baatuu ciidankii yurub qabsaday ninkii hogaaminayey faamiligaasi iyo faamiligii yaraa oo tuuli ama tuuli ay yidhaahdaan. labadaa faamilaa isgargaarsaday oo gaad iyo jagtaay labadaa faamilina way isgargaarsanayeen oo iyagaa 3 boqoree kala dambeeyey ahaa. 2 boqoree kala dambeeyey siiba. akhiiran boqortooyadii qoladii yaryareed iyo wixii oo dhan waa laga qaaday. 4tii inana uu dhalay ninkii la odhan jiray Jenkis Khan kiisii ugu yaraa qolo ku abtirsata ayaa meesha qabsatay. waa mango ama manko ninka la yidhaahdo manko khan loo qoro marka la dhammaystirayo. ninkaasaa meesha lagu wareejiyey. 3 sannadood ee habartani meeshan haysatay. qoladii faransiiskii iyo reer yurubkii wada socday way sugi kari waayeen in ciidamo u diyaaro Qubrus weerarkooda ay qaadeen. waa crusadeska weerarkii 7aad ee taariikhyahanadu ka warramaan ay qaadaan ee macruufka ahaa. masar bay ku soo qaadeen. Saalix al-Ayyub ninkii la odhan jiray markuu masar haystay halkay dawla al-Mamaalik ka soo bilaabmi doonto. boqorkii muslimiinta markaa meesha tan haystay wuu xanuunsanayay. isagoo xanuunsanayuu yidhi igeeya frontkaa la keenay. meesha dagaalku intuu soconayay 3 maalmood markuu dagaalku socday meelahaasi buu geeriyooday. shajaratu dur gabadh la yidhaahdo uu qabay ayaa qarisay. yaan la sheegin baa la yidhi boqorku waayo ciidamada niyad jabaya. islaan iyo dhowrkii janana ciidankaba u tashaday waxay yidhahdeen boqorku inuu dhintay aan qarinno. inankuu dhalay tooraan shaam buu ku maqan yahay oo meelo shaama buu haystaa. inankaana ha loo yeedho bay dhaheen dagaalkuna ha socdo boqorkiina waa caafimaad qabaa unaan dadka ku nidhaahno muslimka ha dagaalkii sidii buu ku socday. dagaalkii wuxuu socdaba Louiskii 9aad isagaa nolol lagu qabtay markii dambe. boqorkii faransiiska isagaa la qabtay. Louiskii 9aad oo maxbuusnimo loo qabtay. crusadeska dagaalkoodiina waa la jabiyey. tooraan shaahna wuu yimi isna wuu dhintay. shajaratu dur ayaa meesha qabsatay. askarigii janankii ugu weynaa ciidamada Ciizadiin Aybak la yidhaahdo bay guursatay. dadkii way ka dhaadhici weyday boqortooyadeedii. ninkan bay guursatay. ninkiibaa akhiiran inankiibaa yimi. inankiibaa la isqabtay way ka takhalluseen. dawla al-Mamaalik taad maqashaan waa halkay ka bilaabantay markaa. Ciizadiin Aybak iyo qolada tan waa halkay ka bilaabantay. uma jeedna inaynu taariikhda ka warrano laakiin waxaynu u jeednaa inaynu tilmaamno masar faransiiskii iyo reer galbeedkii iswatay markii ay soo weerareen intii ay isku mashquulka ahaayeen tataarku iyo aanay jawaab soo celinin ayaa laga takhallusay. waxaa soo baxay markaa dowlad cusub oo tataarku uu leeyahay. waxaa loo magacaabay ninkaa la yidhaahdo manko khan. caalam alislaami markii ay qabsadeen masaaridii markii ay guulaysteen ismay daynin ee ayuubiyiintii kale shaam haysatay isdileen. iyagu muslimiintu sidii bay mashquul isugu yihiin. xaggan christianity dagaalaa kaga socda crusadeski xaggana tataarkaa kaga socda. dhexdoodana la isma tusayo oo weli sidii bay isu dilayaan. markii faransiiskii laga takhallusayba waxaa bilaabmay dagaaladii sokeeye ee ka dhexeeyey shaam iyo masar. labadabana caa'ilo quraa wada haysata oo dawla ayuubiya baa ka wada jirta. halkan waxaa bilaabmaya markaa waxay ku tilmaamaan alijtiyaax الثالث ama weerarkii 3aad ee ballaadhnaa ee ay soo qaadaan nimanka loo yaqaano mongolianisku. weerarkani wuxuu ku bilaabmayaa iyadoo wixii ciraaq galbeed ka xiga wixii ciraaq bari ka xiga oo dhan nimanka tataarkii ay haystaan. muslimiintii aad loo gumaaday. maalan muslimkii beershiya deganaa dhulkana Iiraan la yidhaahdo waxay dhahaan 10 ilaa 15 milyan bay ka dileen. wakhtigaas siday beershiyanka tiradoodu u yaraatay bay yidhaahdaan
beershiyaanku dawlad weyn oo macruuf ay dunida ka ahaan jireen dad ahaanna qowmiyaadkii tirada badnaa bay ka mid ahaan jireen laakiin dagaalada tataarka gadaashood bay yidhaahdaan beershiya tiradeedii rasmiga ahayd waxay dibba u soo gaadhay qarnigan aynu hadda noolahay bartamihiisii qarniga 20aad bartamihiisii ayay tiradii eeraantu dib u soo gaadhay baa la yidhaahdaa waqtiyada meeshii ay joogi jirtay sidaa ogeed baa waxaa lagu tilmaamaa waqtigaasi tataarku uu marayay 10 ilaa 15 milyan oo beershiyan muslima inay xaaqeen manko khan ibnu tuulu ibnu jenkis khan weeyaan isagu inankii ugu yaraa ee jenkis khan baa dhalay marka kan laakiin waa nin 43 jira manko khan waxa kaloo uu kaga disan yahay kuwii hore isaga hooyadii waa kristan waa Nestorian Christians ka kuwa yidhaahdaan alkanisa Nestoriya ayuu ka tirsan yahay hooyadii isagu wuxuu qaatay fikrad ah tii awowgii qoryihii dhexe loo kaadiyeeyo intaan aynu xajinayo ma qaadanin fikradii jenkis khan ee ahaa dunida calan quri waa inuu ka taagmaa dadna waa inay mongool u noqdaan inta kalena waa inay hoos joogtaa fikradii ahayd buu dib u nooleeyey wuxuu leeyahay waxaa dowladdan ay dhismaysaayoo qura marka aynu weerarada rasmigaa bilowno dowladdu markaa isagu dhaxla waxay haysataa kuuriya ilaa Poland inta ka dhaxle waa dawlad ka talisa min kuuriya ilaa Poland ayuu dawlad ka yahay saddex nin ay walaalayihiin ayuu kala diray nin wuxuu ku reebtay caasimadda oo inuu la taliyo u noqdo gobolkan caasimaddu joogana maamulkiisa uu hayo waa ariiqa booqa bay yidhaahdaan booqa ninka la yidhaahdo meesha ku reebay waddanka China iyo Indo-China intaa isku dhanna walaalkiisa kale oo Kabalay ama Qabilay ee carabtu qorto ayaa loo dhiibo la yidhi waa inaad maamushaa walaalkiisa saddexaad halagu la yidhaahdo ama hoolaako carabtu qorto hoolaakana waxaa loo dhiibay dawlad khawarizmiya inta ay ka talin jirtay ama Persia ayaa loo dhiibay waxa la amray inuu weerar qaado markaas uu qabsado maxay dawlad Abbasiyya wuxuu bilaabay marka dawladnimadan markan waxa ku soo kordhaya taasiirka masiixiga waayo hoolaaka laftiisu islaanta uu qabaysna waa kristan boqorkii hooyadii waa kristan hoolaakana caalamul islaami loo soo dirayna isna xaaskiisu waxa weeyaan waa masiixiyad oo waliba daqas khatuunku halka khaanka laga yiraahdo ragga dumarkoodana khatuun la yiraahdo waa queen yana daqas habartan la yiraahdo waa islaam waliba masiixiyad xaq jirta aad ugu naban bay yiraahdaan ayahay wuxuu bilaabay markaa inuu dejiyo khitadii dawlad Abbasiyya sidii looga takhalusi lahaa kullay farxi maysaan dawlad Abbasiyya ridaya ya Ahmed soo fadhiisay halka ku joojiyo assalamu alaykum